Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada ayaa Nuur Cooking waan idin salaamay dhamaantiin. Maanta cabitaanka refreshing aan sameynaya ujeedin. Waxaan ka sameeyay qarahaas 5 koob adiga camal iyo nus oo qaraha ah iyo nus koob yar oo sokor ah ama waa kasoo kala reebi kartaa ama sokorta waa iska deyn kartaa waxay ku xiran tahay macaanka qarahaaga. Biyo ku daraya 2 koob oo biyaha ku daray wax yar oo liin dhanaan ah iyo wax yar oo nacnac. Haddii rabtid liin dhanaanta nacnac كل واسك وضعف كرتا مع البيها مع السكرتا قرها كل جيس أشيدن كرتا هدي وقرها جمعي هاي هدي عاد معاني سنة وحير أسكرها قدر سن كرتا مرك هدي أقرصو جدا يسد وحاسمين إنسا قرها إسكافيري حاجة ولا جرجراعة إن هدي ولحظة يعني هوس وساس وجي هاي يعني جعله من هذا حواي قرهاس وبسلاضي هدي كل جيس وضع جاري هنا ما بسلو سداسي وبدن تاهي مرك وكاسا waxaan idin sheegayaa nacnacaan xanjada laga sameeyaa xanjo kuleelka ma arkin oo laga sameeyaa mint waxa u taqaanid marka hadii oo maxaa la dhahaa gurigaaga ku beeranaysid aniga gardenkayga ka baxda iska ilaali inay kaaga daadato miraheeda dhulka markii ay wareeysadii kala xaafada dhan guriga dhan ay ka wada qabsanaysaa weel yar oo kooban oo sas camal ah waxa la rabaa in aad ugu dhex beeratid I hope inaad ka faa'iideysteen insha Allah marka qarihiisana u soo jarjaray adiga 5 koob iyo bar camal waaye oo qara ah waa ujeeda waxa ku shubaaya blenderkii aan ku shiidayay aan ku shubaaya waxaan kaloo ku darayaa sokor nus koob sokorta ay xogaa ka soo kala reebay hadii aad rabtid waa ka dayn kartaa hadii aad rabtid nus koob kana ku wada dari kartaa macaankaaga ku xiran tahay sida adigu u rabtid 2 koob oo biyaha ahay aan ku daray hadda waan shiidayaa maxaa la dhahaa blenderkayga aniga si fiican u shiidayaa blenderkaaga ay ku xiran tahay cabitaanka sida uu kugu shiidayo marka hadii uu wax gufar ah uu sameeyo waxa sameynaysaa shabaqa soo qaadanaysaa waa ka miiraysaa anikeyga ma ka soo reebayo wax gufar ah iyo waxa soo dhan laakiin waa idin tusaaya sida ay sameynaysaa isdheena hadhow ayada muxuu gufur ugu yeelan waa aniga igu yeeshay saas ay yeeli kartaa ma fahantay marka maxaa la dhahaa aniga barafka biyaha ma iskaga darin hadii kale biyo ka noqonaya qaraha hadhow qof walba galaasku ku cabaayo aan ugu shubay maxaa la dhahaa barafkii waa ujeedin marka waxa waaye mintigan hadii aad rabtid gadaal ugu dareyso hadii aad rabtidna waa ku dhex shiidi kartaa laakiin dadka qaarkood ma jeclo soo sida darteed ha ugu shiidin ama weydii sida ay rabaan reerkaaga qof walba maxaa la dhahaa weelkiisa mise galaaskiisa aad ugu ridi kartaa maxaa la dhahaa nacnaca qof walba dooq uu leeyahay soo maaha marka waa kaasa cabitaanka ma ku dhidin baraf ma ku dhex ridin waxa rabaa yani si uusan biyo u noqonin isagoo sidiisa talaajada gashanaysaa oo diyaar ah waa ujeedaa soo maaha ka garaafada ku shubanaysaa firinjeerka gashanaysaa maasha Allah qabow aan ku dhahay ka raaxaysta insha Allah ka faa'iideysta rabadaanka cabitaano fiican oo gurigeena ku sameeysateen cabba Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada kulligiin